السلام عليكم kusoo dhawaad channelkeena Afgan Media intaan muuqaalkan gud galin marka hore like inoo saar fadlan haddii aad channelka ku subscribe subscribe inoo saar kambalka inoo furo weligaa ma isweydiisay sababta qof kasta oo kula taliya uu ku yiraahdo waqtiga ka faa'iideyso sababtu waa tan waqtigu waa imriga qofka haddii uu waqtiga u khasaariso waad khasaarisay qiib ka mid ah imrigaaga waqtigu waa shayga kaliya aan dib loo elin karin sidoo kale aan la dadajin karin waxaad awood u leedahay inaad ka faa'iideysato waqtiga markaas joogto waqtigu waa sababta ka dambaysa tilaabo kasta oo hor u socod ama dib u dhac ah haddii aad ku ciyaarto waqtigaaga waxaa noloshaada ku imaanaya dib u dhac haddii aad ka faa'iideysato daqiiqo kasta waxaad gaaraysaa wax kasta oo aad qorshaysato insha Allah waqtigu waa shayga ugu qaalisan ee qofka marka laga tago caafimaadka xilliga dhimanayso ma dooran kartid laakiin intaad nooshahay waxaad waqtiga ku qabsanayso waa dooran kartaa haddaba maadaama waqtigu sidaan oo dhan nolosheena saameyn ugu leeyahay maxaad u khasaarinaysaa waqtigaaga maxaad dib ugu dhigtaa waxyaabaha muhiimka ah maxaa kuu kalifay inaad ilowdo waqtigaaga isla xisaabtan samee oo ka faa'iideyso waqtigaaga waayo daqiiqadii ku dhaaftaba baryo iyo dagaal midkooda kuma soo ilin kartid ka faa'iideyso waqtigaaga oo raad ka tag qalbiyada dadka kale qofnimadaada ka dhig mid la xasuusta waayo badan